soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim 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 saaxiibadayda qaaliga meel walba dunida ka joogtiin waxa dhibaan qabshaxsada oo idin le fiidnimo wanaagsan cawaysin wanaagsan waqti walba idin taa saaxiibayaal ramadaan kariim ayaan idin leeyahay qolooyinka reer muqdisho afray iyo qolooyinka yurub oo wali sooman iyo qolooyinka mareykanka hadda waa u bari iyo dhammaantiin inta afka Soomaaliya ku hadasha iyo inta jajabsato ka dabiigsanta iyo inta ku hadasha afka Soomaaliga dhammaantiin waxa dhibaan qabshaxsada oo idin leh maaragtay maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti wanaagsan saacad walba idin tahay barnaamijka sida caadiyana waxaan uga hadlaynaa farqiga u dhaxeeya farmaajo iyo Khayre maxaa u dhaxeeya labadooda farqiga u dhaxeeyaan dadka Soomaaliyeed ka dabagay doona qof kasta oo barnaamijkan dhageysataahu macnaheedu waa ku qanci doona sida caadiyanaba muhiimadu waxay tahay barnaamij markaas soo gasho inaad iska fadhiisato maahan waa shaqada hadda ii socota oo dad badan friend iska dhex fadhiisto sal dhigtay aan rabo inaan xaaqo qofka aan ila socono markuu meesha soo galo habshac iska la fadhiista aniga qofkaas cadawgeyga balaayada lay soo diray waa midka aniga friend iska iyo meel walba inta ii buuxshay sal dhigtay ma ku tasbiixsada midka aan la shaqayn oo maaragtay barnaamijka ummadda Soomaaliyeed loogu adeega cuuryaamiyo waaye kaas waaye saasaan u baaraa profilka dadkan ku malgaraha ninkan kun sheero tayda ka waayaho cawada ku soo hoyamaayo bogeyga Soomaali waxay ka socowaysa waa friend iskiigo kala waaye balaaya ii dhafa fadhida marka waxaan idin leeyahay marka soo dhawaada dhamaantiin meel joogtiin ilaah baan ku dhaartay shuruuda laga rabaa waxay tahay inaad qabshaxsada la joogtaa hadaad rabto odaga dhageysato falowgaad ka dhageysan kartaa hadaad friends qabshaxsada la tahay oo barnaamijka share gareynood meel ii fadhiisato rabbi rasuul waa kala naqda friends waana ku tuura barnaamijka ku soo dhawaada dhamaantiin meel joogtiin waxaan idin leeyahay waxay daaran tahay barnaamijku wuxuu daaran yahay waa maxay farqiga u dhaxeeya ninka la yiraahdo farqiga u dhaxeeya farmaajo iyo Khayre inkastoo ay iyo meel ka kacay yihiin marka koobaadba oo ay maantay Soomaalinimadii iyo maaragtay dawladnimadii ay mugdi galsheen oo labadooduba aysan wax isdhaamin haddana waxaan rabaa labadoodu maxay ku kala fiican yihiin maxay ku kala duwan yihiin qabyaaladda ma ku kala duwan yihiin walba marka koobaad horta waxa weeye labadooduba dawladnimo Soomaaliyeed iyo dan Soomaaliyeed waxba kama qaban igu sawir iyo fan iyo buluq ay wax ka qabteen oo hadda lama dhihi karo labadooda mid ku roon dawladnimada iyo maaragtay wadanimada mid la dhihi karaa kuma jiro mid la dayi karaa kuma jiro mid la dayi karo xataa la fiiri karo kuma jiro marka daacadu hadalno oo aan baasha qabiilayska iyo qoloqoloynta ka dhaafno oo Ilaahay hortii u hadalno oo aanan sidii dadkii qabyaaladu madax marta aanan u hadlin oo aan u hadlo muwaadin Soomaaliyeed oo wax guud fiirinaya wax qabadka oo friends ila aha ay wacaya markan live ku jiro Ilaahay amuursiisa ma ila socdaan friends ila tahay waa qolooyinkaas waa qolooyinka aan rabo inaan mar dhow qabshaxsado oo aan madaxa ka jaro ayagana marka labadoodu horta Soomaali waxba uma qaban anoo qabyaalad ka taagsanayo oo Ilaahay ka cabsanaya waxaan leeyahay farmaajo iyo Khayre wax ay isdhaamaan oo bulshada Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen oo wax qabada oo aan sawir iyo fan iyo buluqbuluqayn ma jirto kaliya waxay noo geysteen dhibaato inay maanta masiirkeena mugdi dadka Soomaaliyeed ay galeen maanta sharna bil alaykum mugdi ay galeen dadka Soomaaliyeed maxay ku galeen maanta Ethiopia iyo ninka la yiraahdo iyo waad aragtay waxa ka socda iyo Kenya maanta anagu waxaan u dhiibanay dal madax bannaan aan u dhiibanay farmaajo iyo Khayre madax bannaan oo shaqeynaya oo aan adduunka uga marsaneen waxaan cabsi weyn laga qabaa oo bulshada Soomaaliyeed ay cabsi weyn ka qabtaa in iska daay dawladnimo iyo hanaan iyo doorasho iyo meel wax la geeyay iyo hore u socode in maanta madax bannaanideeni maaragtay 4 sano kadib ayadii la baaday gooban ku jirno xaqiiq qofka Soomaaliya oo wax garta oo maanta wax dareema lama rabo igu sawir laan qolooyinka igu sawir laan lama rabo qolooyinka mushaar laan lama rabo oo mushaar ka qaata dalkaanu ma ahan inta aad mushaar ka qaadato kaliya ma ahan dalkaanu ma ahan inaad adigu mushaar qaadato adigu wax dhilaan ku heystaa ma rabo aad inaad tiraa ma aha waa inaad muwaadinimo la timaada cidaad rabtaa oo qoladaad rabto muwaadin baa taa Soomaaliyeed waa inaad runta ka hadli kartaa marka waxaan idin leeyahay horta labadooduba maaragtay waxay ku guul dareysteen horta maaragtay hagida bulshada Soomaaliyeed iyo dawladnimada iyo maaragtay wixii lagu aaminay labadooduba wallahi waa ku fashilmeen dadka Soomaaliyeed laakiin markaan sida idin leeyahay qabyaalada idin leeyahay qabyaaladu mid meeshaana oo Mariixaan waxa uu soo wacaa mar allaala markaan live soo galo soo wacaa
dee anigu runtaan ka hadlaa mar allaala markaan live soo galo taleefankiisa caadiga uga waca waa mid xariif marka soo dhawaada waxay ku kala fiican yihiin qabyaalada farmaajo wuxuu boqolkiiba boqol ku guuleystay inuu raalli geliyo qabiilada uu ka dhashay dan walba oo ay leeyihiin si walba ay dawladda ikhtilaafaan qabiilada uu ka dhashay inuu raalli geliyo oo inta uu kursiga fadho uusan ayaga waxay dantooda uu ugu adeego maadaama uu danihii dalkaanu lahaa iyo danihii ummadda Soomaaliyeed uu ku fashilmay inuu dadka uu ka dhashay uu maslaxadooda u adeego uu baartay uu farmaajo ku guuleystay xaqiiqo danta uu asigu leeyahay oo qolooyinkiisa inuu ku guuleysto ayuu uga fiican yahay Khayre oo maaragtay daarood raalli galsho oo Puntland aan laga hadlin oo aan Jubbaland la faragashan oo aan qolan la taaban oo Mariixaan heleen maaragtay ilaa iyo 9 safiir oo kii u dambeeyay ilaa iyo 6 iyo xogaa safiir oo kii u dambeeyay farmaajo maanta gacanta ka sii qabsado hore u la sii tagay hadaba xaqiiqada waxaan ku sheegay bal dib u dhageyso oo safiirka Sacuudiga ugu dambeeyay inta xarab magacawday oo maanta sidii malxiis hadana iska sii watay oo daraadeed South Africa ma uu watay mid kale oo Mariixaan u geystay إله بان إذن كل شيء بالبلشيدة الصومالية أو قدر تيكور سفر كور أو من مريحان قدر جست هذا هو مريحان كلي أو كحجان كيكور أو تركوا مقعودي أو هالمليون أو جنرال لايا أنت هالسوكر واحد الله واحد الدولة لماذا يوم ماشي جانا أو ملايين تلقوا قبنا يسراكيش مريحانو كذا بتورك هذا سراكيش الله مقعود ضنياش أو سراكيش كان يكتب الكلاني كي واحد كده عيا دركتين فرماجو بقول كبل لما بقول وحكوف في عيا هي قبيالة boqolkiiba 200 wuxuu ku fiican yahay qabiilka boqolkiiba 200 wuxuu ugu fiican yahay Khayre musuqa xaqiiqo halka Khayre marka uu arko qof hawiya sokor ku dhacdo qof mursadaha ba sheegin waa suuxa wala qaada hada wallahi billahi taala hadii dalkii dibadii arimihii dibadda lagu fashilmay oo dawladihii Soomaaliyeed la macaamilkooda lagu fashilmay oo maamul goboleedyada lagu fashilmay oo wax walba lagu fashilmay farmaajo waxa uu nool qabiilkiisa haduu dawladnimada ku fashilmay laakiin Khayre dawladnimadina farmaajo waa kula fashilmay qabiilkiisana waa ka dhintay muhiimadda aan rabay in dadka Soomaaliyeed ka daba geeyo wax maanta kale oo laga hadlaaho ma jiraan dawladnimo maanta aanu ka hadlaynaa ma jirto qoftii wax garataa og cunuga lix jirka og maanta meesha aan dawladnimo ka taagan maanta cunuga saqiirka og nimankii inaysan xataa madaxtooyada irideeda dhibaatada ka jirta maanta inaan nabad lagu mari karin aad u jeedin in saraakiilka ciidamada madaxtooyada irideeda lagu qarxinayo dawladda qayb kamid ah ay shabaab isku milmaan ayaga shabaabaan ogna waxaan ognahay maanta inaan meel amni oo la isku halay karo taaka inta la saarahan noqotay oo la dhigi karo meeshaan amnigeeda suganta inay soo jirin markaan ilaahay xaqi u hadalno oo aan iska dhaafno qabyaaladda oo aan iska dhaafno laaluushka oo aan iska dhaafno korruptedka oo aan u hadalno Soomaalinimo oo aan ka tagno jeclaysiga bulshada Soomaaliyeed xaqiiqad ila hadlayaan أنا مركان إذا الله الله ومسوا دمك صدق معناه أنا وحنا ربع إذين مش شيء لكن واحد جيران كجعله أنا وحنا ربع إذين شيء ضد بدن أو كان جارها برا بلشة صاق على مركز سي واحد رباني أنا كان إنه شيء أنا واحد ربطنا دي إيش كتكايلي ما قف كات ربطنا دي أمان تنا كايلي ما أنت دولة نمجر تا ضد كصوماليات اللي هن دولة أنجرناهم مجر laakiin waxay joogtaa madaxdii maadaama labadooduba ay ku fashilmeen hogaankii dalkaanoo loo dhiibtay oo maanta Ethiopia ay leedahay Jubbaland maamul goboleedan u aqoonsanay ninka la yiraahdo Puntland maamul goboleedan u aqoonsanay Somaliland maamul goboleedan u aqoonsanay oo maaragtay meel kasta safiiraan noo jooga oo aan halkaas marayno oo Kenya wax kasta inta noo diido irid kasta naga soo garaacdo xildhibaanadeena xasaanada lahay waxaan oo dhan soo garaacday ay maalin kasta gafuur weynta ugu dheeldheelay oo mil sana u daraadna laha sidii Soomaaliya oo kale hadaad rabto inaad dumarka iyo carruurta dishooda geysta iska tag oo aad ogtiin Afrikada yawda ahayo annaga hoos ma jira maanta qabkeena soo u dhacay nimankaanu noo bahdileen aad u jeedin oo marqaati ka tiin oo anu kaameradooda yeelin oo anigu aan ka horeeyo oo halkaas horta aan ka marayno horta dawladnimada iyo maamulka iyo nidaamka Soomaaliyeed horta halkaas ay geeyay laakiin su'aasha la isku astaabay tahay Soomaalinimada waa ku fashilmeen waxa xaqiiq ah oo maanta aad iga qoraysaan anoo qabshaxsada dalkan sida haduu ku socdo 2 sano kadib nimankan xilka hadii laga wareego waxa la baadi goobi doona madax banaanadii Soomaaliya nimankan dal madax banaana loo dhiibay dal gumaysi ku jiray ka tagi doona maanta iga qor dal la isku haystay ka tagi doona dal calankiisa darfaha looga dhigay ka tagi doonaan kama tagi doonaan dal sidii shalay loogu wareejiyay oo caalamku maaragtay oo saas u garbataayay kama tagi doonaan halkaas waxa geeya faanka iyo eexda iyo maaragtay nin aqoonsiga iyo sacbisraadiska geeysa dalkan halkaas waxa geeysay ninkii ka macnaheedu iga fikir duwan waa sida shabaabka kale hal dilo hal qarxiyo hal culaadiyo hal caayageys dadka Soomaaliyeed walaalow wax ku leeyihiin wadankan waa la joogi jiray mucaaradkuna waa jiri jiray waana la isriix jiray
maaragtay mucaaradna adduunku ka jira meel kasta dunidan dal ku yaal oo aan mucaarad lahayn uma jiro dowladnimo haddaad maqasho waa in mucaarad jira nimankan salay isku xireen muhiimadda maanta aan dadka Soomaaliyeed ka dabageeyaan rabo oo aan qofna igu beeni karin qof madow farmaajo ilma adeertiis iyo maaragtay daaroodoo dhan qof walba waxay rabto dowladdan ka sii waa ka raali gelish ninka safiir rabo ka sii maamul goboleedkii yira xirigaan idin jarna kama hadaliyo kii yira farmaajo ma aqoonsanin kama hadaliyo ninkii daaroodoo inta meel soo fadhiisa dowladda caayil lagama hadlo lama aflagaadeeyo siyaasiyiinta daarood laguma aflagaadeeyo intaas xil allaale xilkay rabaanna waa laga siiya wax maanta dowladda inta dhaliila ama maamul goboleed xiriga u jira intaasoo milyan oo bajada ka qaada kara maanta Puntland ka jira Jubbaland ka jirta wax intay waxay rabaan inta sameeya ku nabadgala oo aan la dalaciin oo baraha bulshada lagu caayin oo maaragtay aan lacagaha laga goy karin ayaga ka jira inta kale waxa weeye waa la isku haystaa waa la isku la dhigay xaqiiq waa dadka Soomaaliyeed waxa way nin been sheega oo isla taxoob ahaa dhacay 7 waxaan ku jirnaa runta laga carro 7 waxaan ku jirnaa qofka bini'aadmiga ah markuu yiraahdo waxaana jira oo runta sheego maanta ay dadka kale ay dhibay oo 7 beentu kacsantaan ku jirnaa 7 beentu kacsantaan jira 7 qabyaalad kacsantaan joognaa 7 nin indhala oo dadka inuu hogaansho rabaan joognaa waqti waxaan ku jirnaa nin indhala oo dhar oo uu leeyahay dharkii nagala furo farmaajo qayr waar dad dhar oo raba in la yiraahdeen dharka ayaa nagala furo ayaga dharka nagala furo ay ku leeyahay maxaa la idinka furtaa dharba ma wadatiin lubigiinatii dadka Soomaaliyeed waa soo jeedaan dadka Soomaaliyeed waa ni arkaan dadka Soomaaliyeed laakiin muhiimad waxay tahay waxa la yiri faca intuu leeyahay waa la yeeshaa shir ba Allah ka dhigay hadda ka hor idin sheegay hadii Soomaalinimadii lagu fashilmay hadii dawladnimadii lagu fashilmay haddii aan macni qaran Soomaaliyeed oo loo adeegayo bulshada Soomaaliyeed adduun lala macaamil aysan jirin haddii wixii dhan dhaqaalaha gobolka Banaadir iyo dekada ayaga shabaab iyo maartay elboorka ay qaybsadaan oo meeshaas oo shabaab kala dhaxayso isla qaybsadaan ay naqatay oo aysan jirin meel loo adeegayo meel loo socday jahal loo socdo rabtay indhaha ka xarno macsarashiida iyo dawladnimada Soomaaliya naqatay maxaa diida qayrow inaad dadka adiga nimanka hawiyood ka dhalato adna aad dawladnimada aad tiraa budgetkooda ha loo furo kuwaaduba waa mucaarada kuwaan anigana budgetka iigu furxaadiid ilaa madaxweynihii dalka ugu sareeyay waaye Puntland waxay tiri dawladda xirigaan u goyna lagama hadlin ma aqoonsanay tiri lagama hadlin waxba ma ogolinay tiri lagama hadlin Jubbaland halkaas istaagtay maxaa ku diida adiguna kuwaada kaliya tuuga ka dhigo kuwada awliya ka dhiga ma dhahda anigana tuugadayda halay dhaafo farmaajo waa ogahay waa tuuga looma wada socdo maadaama aan loo socon anna tuugadaydu ha ii caysho adna taadu ha ku caysho adduunkan waa ku fashilmay ilma adeerta ahaad safiir ka dhigataa muga 10 geysato mursaday mar حتى ugu yaraan waa isu dhigmaan waa laba beelood oo isoo macni beelaha wiyo kala maxaad u weysay inuu mugo 4 safiir qaato aad 4 safiir qaato halka adu ah ninka in adeerka ay tolkaada aad shaqooyinka ka raacdayso oo aad tira waa la igu sawiraad mursada raacdayso oo aad qolo asiga ugu darto halka aad habar gadirto ii soo gelin tiraad oo soo Puntland soo dhaweysto oo ayaga ka shacni badan oo ka dhib badan xaqiiqo ilaah baan kugu dhaash maxaa ku diid haday dawladnimadii lagu fashilmay haddii marka intaas markay maray marka anigoo qabshaxsada waxaad rabtaa markii inaan ku taageero maxaan kugu taageera walaalo maxaan kugu taageera dadka Soomaaliyeed maxaan ka agidi karaa dadka Soomaaliyeed sida farmaajo baash wala tala dafta uga dhigo wala tala daf uma dhigin uma qaybin haddii farmaajo qabiil aad qabiilka la aad ma qamaran kula hal hatta qabyaaladkan oo dalkan horu socon qabyaaladaada ayaa ku diiday ila dalka qabiila lagu yim farmaajaha qabiilku yim qabiilkiisa u leexd war dadka Soomaaliyeed oo maanta haddaan qaldana ay qabto dawladan taageersana nabadyo nolol buruq aan ma qoro anigu waxaan qoraa wax sax oo Ilaahay ila ogyahay maanta qiyaamo la igu su'aalin anigu qabiilna uma jina xirrinna uma xirrinna koba uma sido adduunyadan waa laga tagaa waxaan rabaa wax yar oo noolahay inaan anigu run sheego nin kasta ilaah baa dunidan iskale ilaah baa boqora ilaah baa awood leh ilaah baan anigu u daay wax awooda cid kale oo aan wax u ogolahay ma jirto inaan runta sheego oo ayada ku dhintoon ayada aaminaan rabaa marrabo anigu nin u sacbi iyo nin been sheega iyo niman Ilaahay ka cabsiin dalkaanu waa 4.5 farmaajo qayr waxay keenay wax la yiraahdo Soomaaliyan oo adeegayna 4.5 baa la idinku doortay mugiga horeba ogayba inaadan meel u soconina laakiin muhiimadda maanta aniga aan rabaa halka inaan aniga bulshada Soomaaliyeed maanta isla taabano fiitada ka qoranta waxay taa farmaajo Puntland iyo Jubbaland oo ka dhashay iyo beesha Mariixaanoon tuulaba lahayn oo 4 tuulo degan oo 4 safiir qaatay oo beesha mursada ka yar 4 safiir qaateen kii u dambeeyay maanta gacanta ka qabsaday ilaah baan idinku dhaarshay 4.5 milyan karaan 4 safiir ilaah baan idinku dhaarshay dadka Soomaaliyeed 4 safiir oo caadi ah intaasoo ku xogeeyay intaasoo qunsul Mariixaan ma ku leeyihiin dawladnimada Soomaaliya iyo madaxweynaha miskula leey Soomaalida inta sa xaqiiqan idin sheegay dadka Soomaaliyeed
أما قيلة أما عباد أمي بري أمي أمانية رونتا كمال ما كليه ولا ويا هدايسن كل هين walaalkayo dawladnimadu waa laga leexday maxaad haduu afar magacaawda afar tolka halka tolkaada ka raacday afar safiir maxaad u magacaabuus hawiye kuma hayst oo ayaga toodi ka way afar safiiro mursadaan magacaabaha ii kaadsa ninkaan iska bareejay hawiye xataa way yaqaana wala tardaf way yaqaana hawiye ii kaadsa ninkaan balaayo keenay afar tolkiyo magacaawday afar tolki xaa ku diid adiga maxaa ka dhigay lagu shaqeystay madaxa ka xiran maxaa ka dhigay nin la camleeya maxaa ka dhigay nin aan u shiis wax goyn haddii Soomaalinimadii la waay haddii Itoobiya Kenya maanta shanka bari idinka gali haddaadan nuuxsa karin haddaad qodad u dukatii laadiin haddaad madaxtooyada irdeeda dhinac loo jeestalaya oo salaada isqabalaada oo aad 9 saaco habeenimo inta baxda sida habar caws safrey aan leedahay 9 control aan soo fiirshay inta control isku sawirtaas baawr runaad ugu wareegto waa kula socdaa anigu waxaan anigu waa la socdaa meeshan dawladnimo ma taalo meeshan cadaalad ma taalo walaalo waa fashilanteena iyadoo sida u fashilan nafteeda la jiifiyana banaanka farmaajo waa ogaay inay fashilanta tolkiiso wuxuu geysaha meel muhiim tolkiiso ka daajaha wuxuu leeyahay dan dawladnimadu way xaan idinka hadlay daarado bari dawladnimada hadii soo weysay xaan idinka hadlay xaqiiq waay ma idinka hadlay warbarka marka dadka Soomaaliyeed waxaan leedin sheegaa oo haada oo meelaha jooga aniga iga wareesta qof kasta macnii runta saan u sheega inay u sheegto marto nin walba wuxuu rabaa nin tuugo in adeerkiisa inuu busto ku dado oo nin kale u gudbo xasu sax ma waa in dadka qofka qaldan aad qaban kartaa qofka uu rabaa ahaade qofka qaldan oo aad u aragto inuu qaldayo bulshadan hog wada waa inaad joog ka dhigi kartaa marka waxaan ku leeyahay qayrow xilki lagu dhiibay waa ku fashilantay aan ku leeyahay ana ku dhaha waa ku fashilan waxaad ugu fashilantay adduunku wax kama qaban karto madaxweyniyo ka sareeya korruptada oo ilma adeertiis kaliya xilku magacaaba oo maanta ugu dambeysay safiir wata oo laba safar u galay midna arriya ugu beeni kara laba safar u gatay laba safiiro wata inay fashilantaa fiiri labadii safar ugu dambeysay farmaajo laba safiiro laba marixan ilma adeertii wata ilaa baan idinku dhaarshay 4.5 ka dalka إلا وحوا قبيلة عبد الشكور على مرولال كيس وغير أنت معارضة وسو جايها وجايها وحلك على قاعدة ولا فرماجي ودعويها وحور قال لا حول ولا قوة هي حاضر بتاع ولالكي يقعد سفير ولالكي سكويدي سي أبيس أو كتربانيستا أو جيسك أفريقيا أو كتربان لو قال له ولا أوجيه وبلاج ليست كجرة أيوه سفير قصب شنطة أو مقعود هذا واحد دبان ولالكي سو سفير كده وعلي نبض ينور دولة صمت Soomaaliya waxa kala gaarsiya halkaas oo geey farmaajo wada daraado gacanta ka qabsaday sidii malxiis daraado wuxuu geeyay South Africa hal cawo hoyday mid kale oo mariixaan u la kacay Sacuudiga u wada maxaan ku taageernaa dawladda sidaa Puntland waxay tiri dawladnimada waa u jarna xiriirkan u jarna suuq laga ma leh wax barashada ma aqoonsan suuq laga ma leh dawladdu waxay tahay ma leh suuq laga ma leh imaaraadka ay tagta كوك لقى ما كرو دكدو دي بيول إيه إمارات كأرع دينا عيدا ما أطلع برو دكذا وفريهن مقالة مقدشة كليا مشروع لقى السجرة لقى حر إمارات وحالي واحد يصير الحق بطلان إيو إمارات جبلان وقيفش كورمه dadka Soomaaliyeed waxa weeye anaga indhaha mali in ookiyalha bin moodano waxaan waa aragnaa waa u jeednaa oo idin ka horeynaa adinka hadaad adinku istaan dadka ka aqli badan tihiin waxa weeye kuwa idin ka aqli badana jooga kuwa idin og tilaabadiina la socota jooga waxaan leeyahay marka bulshada Soomaaliyeed meeshan dawladnimo ma taal Soomaalinimo ma taal alla ka cabsi ma yaalo waxa yaala qayro farmaajo raali gelinaya yaala qayro farmaajo xaqiiq weeye dadka qayro taageero waxaan idin leeyahay walaalayaal sabab aad ku taageertiin ma taal hadduu dawladnimada ku fashilmay waa inuu san qabiilnimada ku fashilmay waa inuu hawiye u leexsha waa inuu maamul goboleedyada ilaa kuwaasba jidkii dhagxaan la taagan yihiin waxay leeyihiin dawladdu ma aqoonsan haddana budgetka waa qaadahayaan haddana wax barashada wixii loogu talagalay waa qaadahayaan haddana mashruuc allaale wixii dawladnimada ay miisaankoodi waa qaadahayaan hay ilaah baan idin ku dhaarshay walaalayaal waxaan idin sheegayaa budget kasta oo xaq u leeyihiin waa qaadanayaan soo marka waxa dhibaatadu ku dhacday waxa weeye qolada hawiye waa dhibaatadu nimanka ay gaartay waa nimanka hawiye oo markii dawladnimadii lagu fashilmay oo calankeena mugdi la galshay oo maaragtay Soomaalida loo shaqeeyay igu sawirta soo dhamaatay nimanka kursigoodii aan helay waa nimanka hawiye qaasatan nimanka oo ra'iisul wasaare qeyr ka soo jeedo mursada ku gacan galay oo ku baay oo ku hooga oo professoradoodii koba caseeya oo dadka shalay xalalka ka hayay markii madaxda kala dalka joogtay oo xalalka hayo wasiirada ahaa ayaan waxba haysan oo maaragtay waxaan leenahay maanta bayloodyo adduunka dad heesta aysan jirin oo siyaad barra oo akademiga oo laamiga fadha oo qeyr ka dhuumanay
oo maanta adduunku u baahan yahay oo la raadinayo Soomaaliya ma jiro khayr reeyl ilmaadariin ma oggola waana ogyahay waa ka dhuma xulay waa nin mursay kugu soo kor professor racaan oo la yaqaan leena shaqada hirka leeyahay ma oggola nin mursado meel soo istaag war markaad adigu dadkaada cadow ka dhigato oo aad tolkaada aad cadow ka dhigato oo aad qabiilkii kor aad cadow ka dhigato oo aad qolo walba raacdayso nin faca oo madaxweynaha aad ku dhacayso dalkana oo subax kasta nin hogaansanayo in adeerkii safiir u magacaabanayo oo safarka aad nin mariixana wadanayo waa xisaab la'aanta madaxweyne dalku waa foor shalad waday maanta intaad u wadaa ma ari la safriha ma dhihi weys ma ka hadli weys hay maxaad igu matalay marka maxaan kugu amaana maxaan ku dhahaa qayraa qabta xaad rabtaa inaan ku dhaho ma waxaad rabtaa inaad laamiga habeenkii inta baabuur qaata magaalada xamarsiin dibi macsara shiida aad ku wareegto waxaas sax ma aha Soomaalinimadaas sax ma aha islaamnimo maan dadka maaragtay karalle oo aan ka dhasho waxaan leeyahay qayr qof taageeri kartaa ma jirto sabab aad ku taageeraysid ma jirto Soomaalinimada waa laga leexday dadka Soomaaliyeed waana arkaan waa loo jeedaa taanina kuma haysan hal kinino indhaha jusli iraakiliyo madax ku dhufta marka tii Soomaalinimada kuma haysan qayr tii qabiil kana kuma haysan marka ma aqro ilmo noo dhala marka awle asoo gafur dhubleh anu walaalo gafur dhublees mar shadaalkaada waa saxiixatay baarlamaankaada waxa ilaahay waa marsatay saliid dhalood gaamba ku qorata waa haysataa walaalo gacaliya naga tag marka umada Soomaaliyeed waxa weeye anaga magacaada xabad ku falmayno ra'iisul wasaare aniga ra'iisul wasaaraha mursadeen xabad ku falmayno madaxweynahan xataa rabinani ma baraba hadday saan tahay oo nin calooshiisa cadad calooshada ra'iisul wasaare u noqotay hadaadan mursadii arki karin hadaa dadkii 4.5 ka lagu siiyo ilaahiye waa qabiil mursada qaatana leeyahay aadan arag oo ninka meel fadhaad ka raacday oo ninka hawiya aad hamag tood leedahay ma ogoli oo aadan maamul goboliyada ogoleen annaguna kuma rabnay walaalo naga tag hana qasbin dad qaraabo aqoon oo aadan rixim aqoon oo aadan ahl aqoon oo aadan Soomaali aqoon oo aadan madaxweynaha almeeno aadan musuq asiga uusan qaban oo aadan dhigi karin madaxweyne shalaad safiir wadatay maanta intaad wada faadmo rasuul ya ilaahay baan kugu dhaarshay waxa lagu taageero bulshada Soomaaliyeed maanta kugu daba kacayaan maxay hadaadan inta hadasho meel imaan karin oo maartay aadan keeyaanka dhigi karin laba dalo madax banaanana qashinka iyo suntaad noo wadiin noo kala xira arka jaranjaro saarta ilaahna loo aadan dhigi karin isla gobolka banaadir aad cuntiinad aad biilatiin hadaadan maaragtay Kenya Ethiopia aadan dhigi karin wariya Afrikaana laba dawladood aan sinaan oo aadan ragnimadood lahayn oo aadan bar ku fiicnaynin oo aadan beer ku fiicnaynin oo aadan guda ku fiicnaynin meel adduunka ku fiicantiin maladiga farmaajo fiitaati noola keen wax badan baad ninka beenta waa ordi kartaa laakiin orodkeedu wuxuu dhamaanayaa marka runta timaad xaqiiq waa nin ugu beeni karaa ma jiro ninka qeyraysan ninka qabiil jecel aniga ina adeerkay uu yaa qayr waa fashilayaan ku leeyahay Soomaalidu waxa laga rabaa inaad soo istaagtiin oo in adeerka amku fashilma tiraan adeerkay waa fashilantay waa guul daraysatay waxaan qodobkaana ku inaad dhigi karto intaas inaad dhigi karto Soomaalinimada dhan lagu sheegay intaas Soomaalinimada dhan oo lagu sheegay waa intaas leeyahay Soomaalinimada kala ma jirto Soomaalinimada waxa dilay tuug in adeerka amka tiraado oo yaala hebel ha nool oo la ogaado dadka Soomaaliyeed yaqaaniin Soomaalinimada haddaad rabtiin dadka Soomaaliyeed inaan dhinac isula jeesano waliba dadka aan ka dhasho hawiye qaasatan haddaad rabtiin inaan horumar gaarno fiican wuxuu leeyahay yeelano runta sheega ilaahay ka cabsada eexda iyo qabyaaladda iyo jirdilka iyo maaragta kala sooca iyo kala sarraysiinta iyo sacbis raadista iyo incamlay raadista halkan ka socota maaragtay filow dhigley rabbi ka cabsada dawladnimo ma ahan dadka Soomaaliyeed oo waliba hawiyo runta sheega adinkoon caytamino dhaliyaha keeno ogaado oo tus waxa leeyahay marka ugu dambeys qayrow walaalow gacali waa fashilantay iscarsi arrinku waa halka weey sababa aan ku eedeynayaan waxay tahay dadka Soomaaliyeed ay maqla ayagana kala saaray Soomaalinimo waa ku fashilantay qabiilkan waa ku fashilan farmaajo daarad waa raali gali aduna hawiyo waa culaadis farmaajo mariixaan wax allaalo xileeyno rabowsi aduna mursad xilkaad ka bursan intaasaan idhays ila dawladnimo lama wado dawladnimadu qof socota ma waa haykalkan waa dhumiseen magaciya dhumiseen calankii la isku haystaa jasiire qaaradii dhama waxa laga tirtira meesha si Ethiopia ku darsatay hal bariya u dhaxaysa hal bari kadib daandaansiga ay haddana waxay Jubbaland ay aqoonsatay tirsafiiraan loo joog Kenya gafur weyna maalin beher soo saaray heer ay kaargowga diiday tira kaargow Soomaaliya hatta noogama ima kariga ay gaartay maanta intaasna waradkan walaaltinimada hal la dhowr darisnimada hal la dhowr warniyaho waxaas dawladnimo ma waxa Soomaalima umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay barnaamijkan share gareey runta sheega ku dhiirada huna idin sheeg aniga shakhsiyaan ahay
waxaan rabaa inaan runta sheego walow awowgey hadduu godka soo baxaan raa awowey waxaanad ka leexatay waxaanad ku saxantahay aniga nimankaas hadday wax qabtaan wanaagsan ayaga naftooda waa ku ammaan wax wanaagsan hadday qabtaan hadday Etoobiyadaas gafur kaga jirtaa ay la hadlaan hadday Kenyadaas la hadlaan waa soo fadhiisan waa karaa waxaan leeyahay wax fiican ay qabteen madaxdu waa jawaab laakiin waa fashilanteen fashil nin walba wuxuu raadsaa nin u sacbi kara kaliya nin u nacamleey niman qaladkiisa soo saarin sidaa weey waxaan leeyahay dhamaantiin waqti wahidiin wacnaado meel alla meel joogtiin bulshada Soomaaliyeed wallahi baan idin sheegay hadalkayga idin anfaca Soomaaliya hadalkayga ay u baahanta wax kale uma baahan Soomaaliya waxay u baahanta run haba xaraarata runta u baahanta nin fashilmo loo sacbiyo uma baahan madax astaahilno la yiraahdo waa runta uma baahan been la isugu sacbiya dalkeena ma hadhiga waxa dadkeena qabiilka iyo balaayada horseeda waa nin walba in adeerkiis been ugu sacbiyo waxaan leeyahay waqti weydin wacnaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh